deeqda raashinka oo ka timiday ururka raban ee dalka Djibouti fadhigiisu yahay ayaa waxa loo qaybiyay degmada Karuure oo Sali iyo Sabay. munaasabadii arrinkaasi waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha guddiga horumarinta gobolada Salal iyo Lughaya Maxamed Muuse Bucul Booqbuni. deeqdan oo ka koobnayd bariis, sonkor iyo daqiiq iyo saliid ayaa waxa ka faa'iideystay ilaa deeqdani waxa ka faa'iideystay 600 oo qoys. dadweynaha deeqdani ka faa'iideystay ayaa dhankooda cabiray in deeqdani ay aad ugu baahnaayeen isla markaana waxay u mahadnaqeen ururka Ramaad. ugu horeyntii ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha guddiga horumarinta gobolada Salal iyo Lughaya Maxamed Muuse Bucul Booqbuni. maanta waxaan halkan xaflad kaga soo qaybgalay raashin qaybin ah. raashinkaas deegaanku way gudoomeen waa 200 oo qoys waxa loo qaybshay raashinkaas oo ka kooban saliid, daqiiq, bariis iyo sonkor. waa gudoon wacan waana talaabo wanaagsan oo dadaal ay muujiyeen ururka Ramad iyo jaaliyada Djibouti baas way mahadsan yihiin odayaashii ayaanan iyo odayada dhalinyartii mutadawiciinta ah ee deegaanka ka soo ah annaga shacabigii dadweynihii ku noolaa Karuure deeqda jaaliyada Djibouti ururka Ramad ina soo gaarsiiyeen kala aha sonkor, bariis, saliid iyo daqiiq. عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنو مهد علينا إن أورور كان رمض دقيقة النسوق قارسية أنا كون هيان عبارو إلهي بنقوم هذينا عندي نوك أنتنا ونقوم هذينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتي مدوينكي قدام بيسي أي deeqdani baahi weyn loo qabay isla markaasina deegaamadaasi ay abaartii dabada dheereed ka jirtay. Cabsan Maxamed Cabdilaahi shabakada caalamiga Shinila News magaalada Salal.